بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وسلام يا ضمان صحابتيدا كوا فيسبوكا تاي كوا يوتيوبكا. وأنا سلامية. maanta waxaan barnaamijkan u duubayaa in aan idinla socodsiiyo inaan ku tala jiro inaan barnaamijyo idiin soo gudbiyo barnaamijyadaas oo ka hadlaya siyaasadda caalamka, siyaasadaha isdiidan iyo kuwa dahsoon, kuwa daaha furan, inaan idiin soo gudbiyo waxyaabaha loo yaqaano geopoliticska. dan wax yar oo qeexitaana ku daro horta geopoliticska maxaa laga wadaa. geopoliticska waxa weeye waa saamaynta juqraafiga iyo deegaanada kala duwan ee dunida dacaladeeda ay ku leeyihiin sida deegaanada muhiimka ah marka laga eego xagga juqraafiga, khayraadka dabiiciga ah deegaanadu say ugu kala badan yihiin, una kala muhiimsan yihiin oo strategical locations baa jira aad muhiim ah oo cidda maamushaahi ay maaragtay awood fara badan ku lahaanayso. tusaale haddaan ka soo qaado geeska africa oo kale oo ah meesha anagu kasoo jeedno, cidda geeska africa degta weliba dhinaca ay iska galaan indian oceanka iyo badda cas ay iska galaan ama badda gacanka carbeed ay iska galaan. runtii ciddii maamushaahi waxay awood u yeelanaysaa inay qaliijka oo dhan isha ku hayn karto, mariinka waxay marayo oo dhan waxay awood u yeelan kartaa bersia oo mataqaanaa dhulka eeraanta iyo gobolka oo dhan ilaa india inay maarata isha ku hayn karto. marka meelahaas goobahaas oo noocaas oo goobahaas oo kale ayaa waxaa la yidhahdaa waa strategical locations ama waa goobo istiraatiijig ah oo muhiim u ah maadaama ay goobahaas ay maraan maciishada caalamka, beec mushtar hadday tahay, maraakiib dagaal hadday tahay military amniga iyo magaranaysaa dhaqaalahaba aad muhiim ugu ah. mareennadaas waxa weye waa waxyaabaha lagu hartamay ka mid tahay oo caalamku uu maaragtay isku hayo si maaragtay awood saa'ida loogu yeesho, galaangalna loogu yeesho maaragtay meelaha aadka iyo aadka u muhiimka ah. dhammaan qaybaha tartanka lagu jiro waxay sababaha ugu weynayeen hubinta danaha qaaska ah iyo siyaasadaha qaaska loo meel marsanayo ayaa lagu hubinayaa. si taas loo gaaro haddaba waxaa adduumadan la sameeyey dalal baa la sameeyey. dalalku waddan walbaahuba waa state gooniya. dalalkaasa haddana waxaa loo kala sii qaybiyaa gobollo, gobolka bariga africa, gobolka middle eastiga, gobolka mataqaanaysaa yurub ayaa iyadana gobollo loo kala qaybiyaa, yurubta bari, yurubta galbeed, yurubta mataqaanaa kale ee maaragtay waqooyiga ee scandinavianka. marka waxaa loo kala saaraa iyada lafteeda qaybo gooni gooni ah si maaragtay ay u sahlanaato maamulistooda, ka warqabkooda, dhaqdhaqaaqa loo ogaado. marka arrimahaas iyo arrimaha diblomaasiyadda, shuruucda diblomaasiyadda oo weliba hadda laysaga tunto inaan maaragtay aad iyo aad ayagana diiradda u saaraan rabaa. runtii barnaamijyadan waxay anfacayaan dadka siyaasadda aad iyo aad u daneeya, ha ahaato kuwa ardada ahi wax barta, maaragtay international relationska barta, siyaasadda caalamiga ah, iyo ha ahaadaan cid kasta oo danaynaysaba. waxaan rabaa inaan maaragtay u soo gudbiyo xogo aad iyo aad muhiim u ah oo si laisku hadlayn karo, lasoo baaray, lagu sameeyey mataqaana baaritaan cilmiyeysan oo qoto dheer, dhinacyo badan laga eegay, mar siyaasadda laga eegayo, mar dhaqaalaha laga eegayo, mar laga eegayo magaranaysaa amniga laga eegayo, mar laga eegayo sida laysugu xiran yahay daaha gadaashiisa waxa ka socda oo aan dadka u muuqanin ayaan rabaa inaan barnaamijkan kusoo bandhigo. haddii ilaahay maalmahan hadda soo dhodhow ayaan barnaamijkaas bilaabi doonaa. intaan waxa weeye waa xog hore oo dhac ah oo aan rabo maaragtay dadku inay maaragtay la socdaan. waanan maaragtay ka shaqayn doonaa si aan kaga haqabtiro waxyaabaha dunida dacaladeeda ka socda oo weliba faahfaahsan oo si
maaragtay aad iyo aad maaragtay loo dul istaago oo maaragtay si qoto dheer aan maaragtay uga sheekayn doono insha allah idinkagana faa'iideyn doono waxaan jeclaan lahaa inaad maaragtay pagekaas kusoo biirtaan hadday tahay kan facebooka hadday tahay kan magaranaysa youtube-ka iyo aaladaha kale ee kala duwan ee social mediaha ayaan iyagana kusoo dari doonaa oo kusoo baahin doonaa sida twitterka iyo maaragtay aaladaha kale ee ay xataa ka mid yihiin tiktoka iyo waan kusoo bandhigi doonaa waxaan doonayaa maaragtay inaad maaragtay dadku ay isregister gareeyaan maaragtay si ay xogtu toos ugu soo dhacdo maantadan oo idinla hadlayo waxa weeye waa maalin axada bisha hadda waa 20 bisha abriil 2015 maalmaha soo socda barnaamijyaas si istaba jooga ayaan idinku soo dayn doonaa aad iyo aad aad mahadsantihiin waana idin salaamayaa dhammaantiinba dadka soomaalida ah afka soomaaliga ku hadla meel kasta ay joogaan waa idin salaamayaa saas la socda wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh